xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta la ciyaaraya dhigiisa dalka Zimbabwe kulanka lugta labaad ee isreebreebka koobka adduunka ee 2022 wadamada qaaradda Afrika waliba marxaladda koobaad waxayna haystaan natiijo fiican xulkan qaranka Soomaaliyeed maadaama oo ay hal iyo eber kaga soo adkaadeen kulankii martida loo ahaa ee ka dhacay dalka jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti. Soomaaliya waxay u ahayd markii ugu horeysay oo ay guul ka gaarto kulamada isreebreebka sida lagu daabacay bogga FIFA 12 kulan oo ay ciyaareen kaliya guushii ay ku heleen bishan wadanka Djibouti ayaa loo diiwaan geliyay kadib guushaas bogga Twitter-ka ee ay FIFA ugu tala gashay in lagu buunbuuniyo wararka koobka adduunka ee 2022 ayaa soo daabacayay dhiirigelinta taabanaysa ciyaartoyda Soomaalida oo muujiyay dadaal aan la filaynin marka aad hal tallaabo u jirto booska taariikhiga ah ee wareegga guruubyada isreebreebka koobka adduunka wadamada Afrika ayaa lagu soo qoray maalintii shalayto. xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa markan tallaabo qurux badan qaaday kadib markii ay xulka ku soo dareen dhowr ciyaartooy oo qurbaha uga ciyaarta wadamada hormaray isbedelka laga dareemayo xulka oo tallaabo weyn qaaday. dhanka qaranka Zimbabwe waxay xulkooda dib ugu yeereen saddex ka mid ah ciyaartooyda kuwaasi oo horey looga ganaaxay qaranka maadaama lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen gadoodkii ay sameeyeen xidigaha wadankaas ka hor bilowgii koobka qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar. taageerayaasha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe iyaga oo ka ambabaxay wadanka Koonfur Afrika si ay taageero ugu muujiyaan qarankooda oo kulan dhimasho oo la ciyaaray dhigooda Zimbabwe sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka Koonfur Afrika Cabdulqaadir Axmed. dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya boqolaal ayaa ka qayb galaya daawashada ciyaartaasi oo si weyn loo sooyo si ay taageero ugu muujiyaan xulka qarankeena Soomaaliyeed oo maanta lugta labaad ee isreebreebka koobka adduunka 2022 kula ciyaaraya dhigooda dalka Zimbabwe. si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ah mid si weyn loo wada sugayo magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe ayuuna kulankan ka dhacaya galabta 4 marka saacadu ay tahay xilliga geeska Afrika. dagaalamayaasha shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka oo ku sugnaayay saldhigga la weeraray ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerar gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen al-shabaab waxaana labada dhinac dhex maray dagaal muddo socday. al-shabaab ayaa dib ugu laabtay goobihii ay ka soo weerar tageen oo sidaasi aan uga fogeyn magaalada kadib markii looga awood roonaaday dagaalka oo ay rabeen in ay ku qabsadaan saldhigga sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. ciidamadii lagu weeraray saldhigga ayaa soo bandhigay meydka laba ka mid ah dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga magaalada Garbaharre. dagaalka ayaa waxaa la sheegay in sidii ay u soo qaadeen al-shabaab aysan u suurtagelin oo lagu jabiyay isla markaasina iyaga oo firxada ay goobta ku kala carareen. al-shabaab weli kama aysan hadlin weerarka khasaaraha lagu gaarsiiyey ee ay ku qaadeen Garbaharre iyadoo dawladdu ay sheegtay dhankeeda in ay jabiyeen isla markaasina ay carareen laguna arkayo maanta halkii lagu dagaalamay meydka rag ay ka carareen oo halkaasi looga laayay. al-shabaab ayaa masaafo ka yar 25 kilomitir magaalada xarunta u ah gobolkaasi u jirta waxayna weerarka ka geystaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo iyo koonfurta dalka Soomaaliya. dhanka kale ugaas xasan ugaas khaliif oo ah ugaaska beesha xawaalo oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa si kulul uga hadlay ciidamada ay dawladdu doonayso in ay ka qaado Beledweyne kuwaasi oo la geynayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. ugaaska ayaa sheegay in uu la soo xiriiray wasiirka xigeenka gaashaandhigga qaranka Soomaaliya isaga oo weydiiyay sababta ay u diidayso beeshiisu ciidamada ay dawladdu u qaadayso magaalada Dhuusamareeb. ugaaska ayaa sheegay in ka oday dhaqameed ahaan aysan diidin in gobol kale loo qaado ciidamo dawladda u joogay gobolka Hiiraan balse waxa uu dawladda ku eedeeyay in ay gobolka ka ururinayso dhalinyaro uu sheegay in ay arday yihiin oo ay macawsiyo wataan.
sidoo kale ugaaska ayaa mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada qaybta 21-aad ee ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee hadda ku sugan Beledweyne waxa uu ku eedeeyay in uu yahay ninkii hogaaminayay dagaalkii deegaanka Banyaale ku dhex maray beesha ugaaska ee Xawaadle iyo beesha degta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ee Habaare Jacayr. ugaas xasan ayaa sheegay in reer Hiiraan aysan wiilashooda Dhuusamareeb u diraynin isla markaana aysan dowladda ka yeelayn damaceeda ah in dhalinyaro aan tababar qabin daryeel ciidan aan haysan ay u qaado gobol kale. arrintan in ugaas uu diido ciidamo ay dowladdu qoranayso ayaa waxay tahay mid ku cusub dalka Soomaaliya horeyna aanu sii jirin. dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Somaliland ay howlgalla ka sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa lagu soo qabtay dad la sheegay in ay ka dambeeyeen dagaal shalay ka dhacay magaaladaasi. ciidamada ayaa xabsiga dhigay ilaa 10 qof oo lagu eedeeyay in ay dagaal la galeen ciidamo burburin ka waday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dadkan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa xalay ku hoyday saldhigga booliska ee magaaladaasi. sidoo kale waxaa guuldarro ku soo dhammaaday dadaallo ay waxgaradka deegaanka ku doonayeen in lagu soo daayo dadkaasi. xaaladda ayaa saaka kacsan iyadoona ciidamo dheeraad ah lagu arkayo wadooyinka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa saacadaha soo socda ku wajahan gudaha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. qabanqaabo iyo soo dhaweyn ballaaran ayaa loogu jiraa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha taasi oo hadda ka socota gudaha magaalada Xudur. dadweyne fara badan oo wata boorar lagu xardhay sawirka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Xudur ee koonfurta Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in goob fagaaro ah uu kula hadlo dadkaasi sidoo kalena u booqdo xarumaha ciidamada iyo goobaha muhiimka ah ee degmadaasi. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ra'iisul wasaaruhu uu dhagax dhigi doono mashaariic horumarineed oo laga fulinayo halkaasi. ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay iyada oo ciidamo dheeraad ah lagu arkayo jidadka magaalada Xudur maadaama booqashada ra'iisul wasaare Khayre ay tahay tii ugu horeysay ee gobolkaasi Bakool uu ku tago mas'uul noocan oo kale ah. xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta la ciyaaraya dhigiisa dalka Zimbabwe kulanka lugta labaad ee isreebka koobka adduunka ee 2022 wadamada qaaradda Afrika waliba marxaladda koobaad waxayna haystaan natiijo fiican xulkan qaranka Soomaaliyeed maadaama oo ay 1-0 kaga soo adkaadeen kulankii martida loo ahaa ka dhacay dalka jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti. Soomaaliya waxay u ahayd markii ugu horeysay oo ay guul ka gaarto kulamada isreebka sida lagu daabacay bogga FIFA 12 kulan oo ay ciyaareen kaliya guushii ay ku heleen bishan wadanka Djibouti ayaa loo diiwaan galiyay. kadib guushaas bogga Twitter-ka ee ay FIFA ugu talagashay in lagu buunbuuniyo wararka koobka adduunka ee 2022 ayaa soo daabacayay dhiirigelinta taabanaysa ciyaartoyda Soomaalida oo muujiyay dadaal aan la filaynin. marka aad hal tallaabo u jirto booska taariikhiga ah ee wareegga guruubyada isreebka koobka adduunka wadamada Afrika ayaa lagu soo qoray maalintii shalayto. xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa markan tallaabo qurux badan qaaday kadib markii ay xulka ku soo dareen dhowr ciyaartoy oo qurbaha uga ciyaarta wadamada hormaray isbedelka laga dareemayo xulka oo tallaabo weyn qaaday. dhanka qaranka Zimbabwe waxay xulkooda dib ugu yeereen 3 ka mid ah ciyaartoyda kuwaasi oo horey looga ganaaxay qaranka maadaama lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen gadoodkii ay sameeyeen xidigaha wadankaas ka hor bilowgii koobka qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar. taageerayaasha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe iyaga oo ka ambabaxay wadanka Koonfur Afrika si ay taageero ugu muujiyaan qarankooda oo kulan dhimasho la ciyaaray dhigooda Zimbabwe sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka Koonfur Afrika Cabdulqaadir Axmed. dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya boqolaal ayaa ka qayb galaya daawashada ciyaartaasi oo si weyn loo sooyo si ay taageero ugu muujiyaan xulka qarankeena Soomaaliyeed
oo maanta lugta labaad ee isla reebka koobka adduunka 2020 kula ciyaaraya dhigooda dalka Zimbabwe. Si kastaba ha ahaatee kulanka ayaa ah mid si weyn loo wada sugayo magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe ayuuna kulankan ka dhacayaa galabta 4 marka saacadu ay tahay xilliga geeska Afrika. dagaalamayaasha shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka oo ku sugnaayay saldhigga la weeraray ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerar gaadmo ah oo ay ku soo qaadeen al-shabaab, waxaana labada dhinac dhex maray dagaal muddo socday. al-shabaab ayaa dib ugu laabtay goobihii ay ka soo weerar tageen oo sidaasi aan uga fogeyn magaalada kadib markii looga awood roonaaday dagaalka oo ay rabeen in ay ku qabsadaan saldhigga sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo. ciidamadii lagu weeraray saldhigga ayaa soo bandhigay meydka laba ka mid ah dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga magaalada Garbaharre. dagaalka ayaa waxaa la sheegay in sidii ay u soo qaadeen al-shabaab aysan u suurtagelin oo lagu jabiyey isla markaasina iyaga oo firxada ay goobta ku kala carareen. al-shabaab weli kama aysan hadlin weerarka khasaaraha lagu gaarsiiyey ee ay ku qaadeen Garbaharre, iyadoo dowladdu ay sheegtay dhankeeda in ay jabiyeen isla markaasina ay carareen laguna arkayo maanta halkii lagu dagaalamay meydka rag ay ka carareen oo halkaasi looga laayay. al-shabaab ayaa masaafo ka yar 25 kilomitir magaalada xarunta u ah gobolkaasi u jirta, waxayna weerarka ka geystaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo iyo koonfurta dalka Soomaaliya. dhanka kale ugaas xasan ugaas khaliif oo ah ugaaska beesha xawaadlo oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa si kulul uga hadlay ciidamada ay dowladdu doonayso in ay ka qaado Beledweyne kuwaasi oo la geynayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. ugaaska ayaa sheegay in uu la soo xiriiray wasiirka xigeenka gaashaandhigga qaranka Soomaaliya isaga oo weydiiyay sababta ay u diidayso beeshiisu ciidamada ay dowladdu u qaadayso magaalada Dhuusamareeb. ugaaska ayaa sheegay in ka oday dhaqameed ahaan aysan diidin in gobol kale loo qaado ciidamo dowladda u joogay gobolka Hiiraan, balse waxa uu dowladda ku eedeeyay in ay gobolka ka ururinayso dhalinyaro uu sheegay in ay arday yihiin oo ay macawsiyo wataan. sidoo kale ugaaska ayaa mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada qaybta 21aad ee ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee hadda ku sugan Beledweyne waxa uu ku eedeeyay in uu yahay ninkii hogaaminayay dagaalkii deegaanka Banyaale ku dhex maray beesha ugaaska ee Xawaadle iyo beesha degta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ee Habaare Jacayr. ugaas xasan ayaa sheegay in reer Hiiraan aysan wiilashooda Dhuusamareeb u direynin isla markaana aysan dowladda ka yeelayn damaceeda ah in dhalinyaro aan tababar qabin daryeel ciidan aan haysan ay u qaado gobol kale. arrintan in ugaas uu diido ciidamo ay dowladdu qoranaysa ayaa waxay tahay mid ku cusub dalka Soomaaliya horeyna aanu sii jirin. dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Somaliland ay howlgalla ka sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa lagu soo qabtay dad la sheegay in ay ka dambeeyeen dagaal shalay ka dhacay magaaladaasi. ciidamada ayaa xabsiga dhigay ilaa 10 qof oo lagu eedeeyay in ay dagaal la galeen ciidamo burburin ka waday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dadkan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa xalay ku hoyday saldhigga booliska ee magaaladaasi. sidoo kale waxaa guuldarro ku soo dhammaaday dadaallo ay waxgaradka deegaanka ku doonayeen in lagu soo daayo dadkaasi. xaaladda ayaa saaka kacsan iyadoona ciidamo dheeraad ah lagu arkayo wadooyinka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa saacadaha soo socda ku wajahan gudaha magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. qabanqaabo iyo soo dhaweyn ballaaran ayaa loogu jiraa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha taasi oo hadda ka socota gudaha magaalada Xudur.
dadweyne fara badan oo wata boorar lagu xardhay sawirka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada xudur ee koonfurta soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la filahayaa in goob fagaaro ah uu kula hadlo dadkaasi, sidoo kalena u booqdo xarumaha ciidamada iyo goobaha muhiimka ah ee degmadaasi. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ra-iisul wasaaruhu u dhagax dhigi doono mashaariic horumarineed oo laga fulinayo halkaasi. ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyey iyada oo ciidamo dheeraad ah lagu arkayo jidadka magaalada xudur, maadaama booqashada ra-iisul wasaare khayre ay tahay tii ugu horreysay ee gobolkaasi bakool uu ku tago mas-uul noocan oo kale ah.